باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج وروحي الدمر كاهيد وعذرية وتقول مرستي سايد بدأ ولبحضه معناها واش قرحين يوسد قونين من هي ولا الديدي ورسولك الديدي صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة يذا لقهر تغيو حاران تيردب كيمانيا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول كوحوري إذا استعطرت المرأة قبل مركي أدكسته أي عذرية بخور مرسته فمرض على القوم قال صامرت ليجدوا ريحها سعرف كذا ودقون كذا يضريما فهي كذا وكذا وعينك إيه عينك اسم النبي قال قولا شديدا هذا الضرن وأضرب كالشيء أما أقول دي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك قاركوضو حيث الماميان أنها زانية وتسنيستي أوكالي لأنها تصبب زنا العين والسنة دي إيش السبابيس مركا أدقون كمغلان رقو إيدي بإيج والعين تزني ده إيش روي سنيسته مركا إيش ماذا حاران تاكل عضية ده السبب إذن سكالها الدين لو إيجو ده قف كان يتعلم ما يدقانينه هو جي أي رقص صور الهايت سمايس يقوم بأمريكا أمد دبقلي أما كهاريه sidaasoo kale un baa jinkuna uu dabagalaya iyo quruumaha hoose marka iyadana udugsadaan way raaci karaa aadaabtii anshixii wanaagsanaa maaha sidaas dhaqanka Soomaalidu dhibku leeyahay ka mid tahay dumarkooda intay bukhur marsato uunsato cadariya wax walba isku shubto dahabkii xidhato indha kuushi makeup-kii wixii oo dhan sidii ay ninkeeda isugu diyaarin lahayd shaaric ay ku taagantay waxana laga yaabaa markay timaadana ee isagii u yimaadana inay dharkii kitchenka u soo gashato wa ra'san ala al-aqib way dabaroganti xaajadu way dabaroganti umaduhu markay diinta ka baydhaan dhaqankooda oo dhan baa isdabaroga jaamacadaha gaalada iyo dugsiyadooda sare qayb bay mamnuuc ka tahay gabadhu iyadoo noocaas inay soo gasho waxay ku leeyihiin waa inay kala duwanaataa markay aroos tagayso iyo markay iskuul tagayso marka gabadh nooca iyo noocaas iyo noo iman jaamacado badan oo Ingiriiska waa ka mamnuuc gabadh inta caynka isu soo diyaarsay inay timaado waa laga celinayaa albaab kuweenana waa soo dhawow hal lagu daawadee marka waa dhibka iyo akhlaaq xumada dadkii islaam sheeganay akhlaaq xun dabeetana inaan baaf laga deeyay mid baa u baxay mid baa khaawisay waxaasay kooranayaan goor waxaan odhanayada u soo wahay